dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in guud ahaanba la soo afmeeray wajigii ugu dambeeyay ee buuxinta harada biyo xireenka wabiga Nile halkaasi oo laga dhisayay biyo xireen istiraatiiji ah. Haddaba maxay ka tiri tallaabadaasi dowladda waddankaasi Masar? Maxay tahay dhaqdhaqaaqyada xooggan ee dhinacyadu ay kala abaabulayaan? warbixinteennan ayaan ku eegi doonaa ee daawada hadday tahay markaaga kugu horeysay aad soo booqato halkan subscribe noo saar noona like gare muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada aanu si aan baqaadno. dowladda waddankaasi Itoobiya ayaa waxa ay ka dhawaajisay in guud ahaanba la soo afmeeray wajigii ugu dambeeyay biyo xireenka wabiga Nile waana tallaabo xooggan oo markaasi ay qaaday xukuumadda Addis Ababa waxaana la tilmaamayaa in tallaabadan ay culus tahay. xukuumadda Addis Ababa ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay u gogol xaaraysay guud ahaanba in la soo afmeero buuxinta wajiga ugu dambeeyay ee biyo xireenka wabiga Nile. tallaabadaasi oo u qusgoon karta xukuumadda Qaahira oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday tallaabooyin culus oo kala dhaxeeya dowladda federaalka iyo heshiisyo ay la galayso Soomaaliya ayaa la tilmaamayaa in guud ahaanba markan ay qaadayso dhaqdhaqaaqyo xooggan kuwaasi oo guud ahaanba ay salagyo military uga samaysanayso gudaha Soomaaliya. tallaabadaasi ayaa Addis Ababa waxaa la tilmaamayaa in si weyn ay uga carootay dowladaha Masar iyo Itoobiya ayaa la tilmaamayaa in xiisadoodu meel culus ay gaartay waxaana siyaabooyin kala duwan tallaabadan isugu dayay wadamo dhowr ah oo kuwa Carbeed ka mid ah balse waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba xal loo waayay in labada dowladood si ka foolihii markaasi la isu horfariisiyo. waxaana la tilmaamayaa in Qaahira tallaabadaasi ay guud ahaanba ka biyadiiday muddooyinkii ugu dambeeyayna khilaafka labada dowladood oo cirka isku sii shareeray waxaana biyo xireenka wabiga Nile xaaladiisa mar kale soo cusboonaysiiyay dowladda waddankaasi Itoobiya waxaana ay sheegtay in munaasabada lagu balfurayo guud ahaanba biyo xireenkaasi in guud ahaan la dhammaystiray ay ku casuumayso xukuumadda Qaahira iyo madaxdeedu waxayna u muuqanaysaa tallaabo culus oo hanjabaad u muuqanaysa islamarkaana guud ahaanba madaxa ka geli karta xukuumadda Qaahira. Cabdulfataax al-Siisi ayaa toddobaadkan gudihiisa waxa uu heshiisyo qoto dheer la saxiixday dowladda Soomaaliya ka gadaal tallaabadan ayaa timid kadib markii uu burburay heshiiskii Ankara ku dhex maray labada dowladood ee Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya waxaana tallaabadaasi fursad xooggan u aragtay dowladda waddankaasi Masar waxaana dhinacyadu tallaabooyin xooggan ay qaadayeen muddooyinkii ugu dambeeyay guud ahaanba cirka ku sii shareeri karta tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda Addis Ababa oo guud ahaanba meesha ka saartay biyo xireenka wabiga Nile guud ahaanba la soo afmeeray. labada dowladood oo dagaalkoodii salka ku hayay guud ahaanba biyo xireenka wabiga Nile ayaa u muuqanaya in guud ahaanba markan la soo afmeeray islamarkaana xukuumadda Qaahira ay ku dhawaaqday tallaabadan. waxaa ka daro dibi dhalaca in guud ahaanba dowladda Soomaaliya ay siyaabooyin kala duwan uga dhex muuqanaysa khilaafaadka ka dhex xoogan labada dowladood ee Addis Ababa iyo sidoo kale Qaahira waxayse u muuqanaysaa tallaabooyinka ay qaadayso dowladda Soomaaliya kuwa guud ahaanba aanan ka tarjumaynin siyaabooyinka diblomaasiyadeed ee markaasi loo mari kara dhabaha ay wax ku wada saxiixan karaan labada dowladood sida ay markaasi tilmaamayaan falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda oo siyaabooyin kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyay arrintan uga hadlayay. waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba heshiiskii labada dowladood ay kala saxiixdeen horaantii sanadan guud ahaanba uu fashil ku soo idlaaday markana waxaa la tilmaamayaa in markan ay iswajihi karaan labada dowladood ee Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya islamarkaana xiisadu ay cirka isku sii shareeri karto maadaama guud ahaanba uu buray heshiiskii labada dowladood dhex maray. dhanka Addis Ababa ayaa la tilmaamayaa inuu ugu badan yahay heshiiskan inuu ka burburay Soomaaliyana waxaa la tilmaamayaa inay qaaday tallaabo kale oo dab ku sii shidi karta khilaafaadka ka dhex xoogan labada dowladood ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda waddankaasi Itoobiya waxaana heshiis ay la saxiixatay dowladda waddankaasi Masar. waxaa heshiiska sidoo kale kula jira dowladda waddankaasi Turkiga oo iyadu tallaabadan dabada ka riixaysa maadaama dowladda waddankaasi Sacuudi Carabiya oo ay si weyn isu hayeen muddooyinkii ugu dambeeyay ay la xiratay dowladda waddankaasi Itoobiya waana tallaabo culus oo ay dhinacyadu siyaabooyin kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyay uga shaqeynayeen. dhaqdhaqaaqyada xooggan ee ka dhex xaluusan xukuumadaha Addis Ababa iyo sidoo kale Qaahira ayaa u muuqanaya mid dhalin kara gacanka hadal labada dowladood dhex mara maadaama dowladda waddankaasi Masar lagu wareejiyay qaybo badan oo ka mid biyaha Soomaaliya in guud ahaanba ay wareejiso islamarkaana difaaca badda Soomaaliya laga qayb yeelay. waxaa la tilmaamayaa in Itoobiya iyaduna ay doonayso in si awoodihii ay ku gaarto biyaha Soomaaliya ayna xoojinayso heshiiskii hore ay ula gashay Soomaaliya.
toddobaadkan gudihiisa ayaa la filayaa Cabdiraxmaan Ciro inuu ka dego magaalada Addis Ababa ee caasimada wadankaasi Itoobiya, halkaasi oo lagu sii ambaqaadayo heshiiska labada dhinac ay hore u galeen, walow la tilmaamayo inuu ka biyo diidan yahay Cabdiraxmaan Ciro inuu tago magaalada Addis Ababa si loo sii ambaqaado. waxaana la tilmaamayaa in tallaabooyinkan ay culus yihiin, dhinacyaduna ay si weyn isu hayaan. tallaabadan ayaa u muuqanaysa guud ahaanba mid culaad cusub ka dhex beeri karta wadamada Addis Ababa iyo sidoo kale Qaahira oo muddooyinka ugu dambeeyay si weyn isu hayay. Masar waxa ay doonaysaa in guud ahaanba la hakiyo biyo xireenka webiga Nile oo wejigiisa ugu dambeeyay dowladda Itoobiya ay shaacisay in guud ahaanba la buuxiyey, waxaana la tilmaamayaa tallaabadaasi in guud ahaanba ay culus tahay, isla markaana ay si weyn uga dhursugayeen tallaabooyin kale oo wax ku ool ah oo ay qaadi doonto xukuumadda Addis Ababa. waxaana la tilmaamayaa in Abiy Ahmed iyo dowladdiisu ay qaadayaan tallaabooyin culus oo aanan ka tarjumaynin qorshayaasha dowladda wadankaas Masaarida. Itoobiya dhankeedu waxaa la tilmaamayaa in si weyn ay uga shaqaynaysay muddooyinkii ugu dambeeyay buuxinta wejigii ugu dambeeyay ee harada biyo xireenka webiga Nile oo heer gabagaba maraya, waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba ay ka helayso god koronto oo baaxad leh, taasi oo laga wada isticmaala gudaha wadankaasi Itoobiya. sidoo kale waxaa jira dhaqdhaqaaqyo xoogan oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhinacyadu ay u xusulduubayeen. dowladda wadankaasi Masar oo biyo xireenkaasi siyaabooyin kala duwan dhibaatooyin uga haya, waxaa la tilmaamayaa in sidoo kale dhibaato uu ku hayo waraabka iyo sidoo kale dhaqashada xoolaha oo muhiim u ah guud ahaanba dowladda wadankaasi Masar ay ka helaysay. waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay guud ahaanba meesha ka bixi karta. dhaqdhaqaaqyada dhinacyadu ay sameynayaan iyo gulufyada ayaa u muuqanaya guud ahaanba kuwa meesha ka saari kara dadaalada wax ku oolka ee dhinacyadu ay wadeen muddooyinka ugu dambeeyay. xukuumadda Qaahira ayaana la tilmaamayaa inay qaadaysa tallaabooyin xoogan oo markan ay uga jawaabaysa dhaqdhaqaaqyada iyo guudinta dowladda Itoobiya ee ay baraha bulshada la timaaday. xulafaysi cusub ayaana la tilmaamayaa in dhowaan uu ka beermayo saaxada siyaasadda guud ahaanba bariga Afrika, waxaana isku biiri kara wadamada Soomaaliya, Eritrea iyo sidoo kale Masar, kuwaasi oo si weyn muddooyinkii ugu dambeeyay wada shaqaynayay. tallaabadaasina waxaa la tilmaamayaa in guud ahaanba si weyn ay uga caraysan karto xukuumadda Addis Ababa. Abiy Ahmedna waxaana la tilmaamayaa inuu qaadayo tallaabooyin uu ku xudxudanayo Somaliland, isla markaana guud ahaanba uu uga qalqaalsanayo sidii ay ku heli lahaayeen mid kamid ah maranbiyooda hore ee uga saxiixday Somaliland, isla markaana 20 kilomitir oo kamid ah gudaha gobolka Awdal laga siinayo. waana tallaabo culus oo hore qaranka uga dugay korneelkii hogaaminayay Somaliland. waxay u muuqanaysaa tallaabadan inay culus tahay, dhinacyaduna waxay qaadi doonaan tallaabooyin culus oo kuban la mid ah, lama sooga halka ay saldhiga doonaan.